السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تسولوا هذا halkan waa channelka Faaliyaar Dhaab aadaba kala socota warbixino ku saabsan soo dhawaada fadlan channelka subscribe noo saar noo like gareey noo share gareey hadii aad tahay qof nala sii joogana waa maasan tahay si share gareey barnaamijka warar muhiim ah idin haya wararkaasi waxa kamid ah dadkii bisha afraad tirkoob galay oo ayaa la soo diray fariimo cadeynayo in ay galeen category 1 qaar ay galeen category 2 qaar ay galeen category 3 qaar ay galeen category 4 warbixintaasi maqribkii ay soo dhacday marka dadweynaha ku nool xiriirka Dhaab ifo dhagaxley xaga dheere waxaan ku baahinaynaa in hay'adda WVS ku soo dirtay fariinta nin kasta tirkoob laga qaaday nambarkii uu qortay ee ugu soo dhacday fariin nambarkaas oo ah nambarka adiga aad leedahay ama bambajakuladaada aad ka heli karto nin kasta fariin kasta oo soo dhacday aad ka heli karto nambarkaaga haddii fariintaasi aad wayso waxaad tagi kartaa meesha WV aan malayna in isniinta ka bilaabato loo shaqeyn doono barnaamij kale laakiin way fiirin doonaan isniinta ilaa jimcahan barnaamij kale loo shaqeyn doonaa WV oo ah diiwaangelin leeman oo bambajakula marka arintaasi dadkii sugayay dad badan ayaa sugayay way ogtiin bisha 7 raashin may qaadanin bisha 6 raashin may qaadanin bisha 9 may qaadanin raashin 12 bilood rabaan dad baa raashin qaadanin oo ku rafaadsana marka dadkaas qaar baa dad caaw faraxsan oo u soo dhacay qaar baa category 1 galeen qaar baa category 2 galeen qaar waxa laga arkay oo category 3 ahaa oo cabasho geystay koob galay hadana category 3 lagu soo celiyay markii la dhageystay fariintooda hadana category 3 dib lagu soo celiyay marka barnaamijku waa badan yahay dad badan ayaa faraxsan caawa xerooyinka Dhaab oo heleen category 1 iyo category 2 oo raashin qaadan doono oo 12 bilood soo dhaafay raashin aan qaadanin oo rafaadsana oo dad masaakiin ah WV way soo jawaabtay si ay sheegtay WV bishii hore waxay dhaheen bisha 7 dhexdeeda soo jawaabi doona si bisha 8 dadkaas lacag ay u qaataan raashin ay u qaataan marka category 1 iyo 2 dadkii la soo galiyay oo nambarkooda ugu soo dhacay raashin way soo doonan karaan ninkii category 3 ana chakoliis isku saarna category 4 na waxba loo mahay tan kale ka bilaabatay isniinta ilaa jimcaha soo socdo waxa loo shaqeyn doonaa leeman bambajakula oo nin kasta alinkiisa loogu furi doono hadii alin ah haysato leen kasta bambajakula ayaa lagu furayaa nin kasta WV waxay sheegtay in bambajakulada leemankan laga guuri doono loo guuri doono leeman oo bambajakula oo adiga leedahay oo alinka lagu furayo alinka lagu furi lacagtaada suuqa kala bixisa marka darata damaro dad baa la diiwaangeliyay dadkii qaar leemankii way iska dhigeen leeman qaar way iska xirmeen Safaricom dib bay u ceshtay dadna way ku shaqeystaan oo u shaqeeyaan dadku u shaqeeyo oo loo hagaajiyo oo qaarkood leenka haysto looma baahna laakiin ninkii alin cusub u soo baxay ninkii bambajakula leen haysanin oo Safaricom haysanin waxa laga codsanaa inay imaadaan manifesto ay imaadaan alin ay imaadaan goobta bambajakulada iska bilowday isniin talaado arbaco khamiis ilaa jimca xaga dheere ifo dhagaxley ifo 2 kulligood waa laga shaqeyn doonaa marka waxaan u sheegay dadweynaha in ay dadkaasi leemankooda ay diiwaan gashtaan sifa bambajakula waa laga guuri doonaa waxa laga guuri doonaa hadda bambajakula waa restricted waa wax xadidan waxa loo guuri doonaa unrestricted wax xadidneen waxaan ka wadaa marka restricted waxa la dhahaa leemankan jakulada had ina qaadato dukaankaas kala bixin kartid kaliya waxa kala bixi kartaa dad bambajakula hay'adda diiwaangelisi kaliya kala bixi kartaa berito markii hadda leenkaaga bambajakula leen lagu siiyo Safaricom oo M-Pesa lagu furo oo car conditioner lagu gelina markaas kadib waxa noqon kartaa lacagtii bambajakula ku soo dirto waxaad kala bixi kartaa dukaan kasta oo M-Pesa kasta ayaa kala bixi kartaa waana ku adeegan kartaa laakiin Safaricom maanta waxay noo sheegeen in qofku markii leenka loo furo in loo furo M-Pesa loo furo biin la siiyo kadibna konton shilin kaar loo geliyo hadii kaarka konton shilin la gelinin way xirmi leenka hadii la isticmaalin wuu xirmi leenka waxa la rabaa marka telefoon inaad gashato aad ku hadasho leenka ka dhigato aad ku socoto leenka aad u ahaado M-Pesa ku shubato kaar ku shubato oo wax rabto ku samaysato jakulada lacagta biinka lacagta jakuladana meesha kugu soo dhacaysa marka leemankaas ayaa la bilaabi doonaa isniinta ilaa jimcihii dhammaan xerooyinka Dhaab ayaa laga bilaabi doonaa marka arintaas la soo dad badan oo ka xirmay leenkii oo meel iska geliyeen marka phase 2 waay markii labaad waa la diiwaan gelinayo ninkii diiwaan gastay waxa jira diiwaan gastay oo leenkooda haysta oo ku hadla oo M-Pesa ku isticmaala dadkaasi waxba dhib ma qabaan waxooda waa u sugayeen
laakiin ogaada jakulooyinka waa laga guuri doonaa su-aasha kale la weydiiyay WV dadka baanaa qabo oo leen calin usoo bixin seeliyeeli jakuloo haysanaa inay ku dheheen jakuloo ay ku dhaysay ay ugu soo dhigay laakiin dadka kale waxaa loo sameynaya oo calinka haysto calin valid haysto inay tagaan leemanka ay kala bixi karaan embassy meel kasta inay kala bixi karaan marka insha Allah waxay warbixin halkan ay kala socon doonaa dadkaas faraxsanna caaw waan u hambalyeynaa WV in dad rafaadsana oo 4 iyo 3 aha ama MV aha ay ku soo dartay goobta raashinka number 1 iyo number 2 ay ka soo dhigtay insha Allah waa maasantii waan salaama asxaabta janalka